بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa. dad badan baa su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta igu dhacday oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. waxaan marayay hotelka Star ama xaafadda Calaamada horteeda aan maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oo markaa ka adeegtay. dukaankii markaan saa uga soo baxay waxa ila kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa walaal maxaa dhacay baan ku yiri jira adigu muran yar kadib waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwad ku socota oo warqad ay sidaan oo ay igu soo dacweeyeen saycidi ama dibaan sameeyay ii sheegeen already adigu gacan baa la igu bilaabay ilaa dhowr iyo 10 askari ayaa gacan i qaaday nabarrada ii geystay. ma goobtii bay kugu dileen marka ay ka heleen mise saldhig baa loo geeyay? goobtu waa wadada dhexdeeda la igu garaacaya gaari baa la isaaray ilaa intaan gaariga sii saarnaa nabarra igu dhacay. maxay ahaydey sidaasay u dhacday. saldhigii baa la igeeyey wax dambi oo la igu haysta la iima sheegin, warqad la iga soo gudbiyey lama sheegin. saldhigu waa kee loo geeyey? saldhiga quraacdheer baa la igeeyey. oo bima laga qoray markii saldhiga loo geeyey? xataa la iga qoray ma jiro waxaasan kugu haysanaa layma odhan. dibadun baa la iisoo saaro la iisoo tuuray. haddana saldhiga gudihiisa jirdil miyaa lagugu geystay? nabarro way igu dhacayeen intaan sii socday ilaa markii la qaaday. wax hadal ma istiraadeen nimankii meesha haystay nimankii kelmad bay igu yiraahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii. waxay igu yiraahdeen waan ku garanaynaa waliba heesahaagana aad baan uga jecel iyo fankaaga. laakiin waxa iga yaabay qof ciidankayga oo booliska oo waliba ay garanayo oo waliba heesahaaga waan xiiseeyaa ilaa sababta uu igu geystay nabar ama igu dilay baa iga sii qiiraysiisay runtii. والسؤال اللي سيكون نقول دونه waxaan sameeyaa anagoo qoray ma iska fikirayo waxa jira 100,000 oo qof oo nabarrada aniga igu dhaca habeen walba ay ku dhacaan iyagoo kiisiyo dambi geysan. waxaan ka codsanayaa ciidanka booliska insha Allah mar dambe inaan qof aan dambi geysan aan nabar ku dhicin. war la isaga noqon doono dawladda waa xadgudubka iyo tacadiga ka socda gudaha dawladda iyo magaalada gudaheeda. waxa jirdil loo geystay qof celebrity oo magac leh oo la garanayo waliba isagoo garanaya dambi la'aan lagu jirdilay. waad u jeedaan ninkan nabarrada ku yaala wajigiisa jirkiisa inta kale nabarrada ku yaala ka badan dhowr iyo 10 askari saldhiga quraac dheer ka tirsan ee magaalada Hargeysa. muuqaalkaygaas cidii kasta oo soo gaara waa inay sii share garaysaa, waa in la faafiyaa muuqaalka, waa in jawaab degdeg ah sida ugu dhaqsaha badan laga soo dhiibaa.